kulanti wanaagsan saaxiibadana daawanayo oo meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo aan ku soo koobayno waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya 24 saac ee la soo dhaafay waqti dheer kadib waxa laga soo gudbay murankii dabadheeraaday ee doorashada Soomaaliya waxaana la dhaariyay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxayna si ku meel gaar ah u doorteen labadii xildhibaan ee ugu da'da weynaa oo ka soo kala jeeda deegaanada Puntland iyo Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana la filayaa inay maalmaha nagu soo aadan qabtaan doorashada guddoonka baarlamaanka 11aad markaa kadibna loo gudbo tan madaxweynaha dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT ayaa wareejiyay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ayagoo garab ka helaya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaana go'aankaas degdeg u soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxaana 16 kursi ee Garbaharey taalay hadda lagu dooran doonaa magaalada Ceelwaaq oo ay joogaan ciidanka Kenya iyo kuwa Jubbaland maamulka magaaladaasna waxaa gacanta ku haya Axmed Madoobe waana mid u sahlaysa inuu dhammaanba kuraasta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland qaato Axmed Madoobe sidoo kale madaxweyne Farmaajo waqti dheer u dagaalamayay kuraasta Gedo oo inta badan ay beeshiisu leedahay inuu qaato isagu hadda waxaa ku dumay darbi weyn waxaana muuqata inuusan calfan doonin kuraasta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland sidoo kale guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa durba shaaciyay jadwalka iyo waqtiga la qaban doono kuraasta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo hadda loo wareejiyay Ceelwaaq waxayna u muuqataa inuusan Axmed Madoobe dhageysan doonin cabasho kasta oo ka timaada reer Gedo iyo tilaabo walba uu Farmaajo ku dhaqaaqo waqtigan sidoo kale Farmaajo iyo kooxdiisa oo kuraastan waqti dheer ku dhaganaa hadda ma haystaan fursado badan oo ay wax ku diidi karaan dhinaca Axmed Madoobe ayaa si haysta taageerada beesha caalamka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midda guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo heer federaal taasi oo biyo qabo ku shubaysa qorshe walba oo Farmaajo ku diidi lahaa sidoo kale dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in shacabka Gedo ay dayaceen fursad lama helaan ah kadib markii ay dhawaan diideen in guddigii qiimeynta Gedo ay yimaadaan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland waxayna taasi keentay in guddiga doorashooyinka qaranku ay helaan fursad ay ku bedeli karaan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland waxaana go'aanka guddiga lagu soo beegay markii la dhaariyay xildhibaanada dooran ee baarlamaanka 11aad waxaana halkaas ku soo dhamaaday wada shaqayntii iyo wax walba ay wada qaban lahaayeen golaha wada tashiga qaran waxaana hadda fursad iyo xalka deegaan doorashada labaad ee Jubbaland laga sugayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaha Jubbaland waxaana halka ku soo dhamaaday qorshe walba oo Farmaajo ku heli lahaa marmarsiyo iyo qiil u raadin Gedo wax walbana gacantiisa waa laga saaray intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka maxaa cusub oo aan ku dulmaraynay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya 24 saac ee la soo dhaafay